بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaa caawa farxad noo ah anagoo fadhina xafiiska jaalida Soomaaliyeed ee guud ee wadanka Turkiga sharafna noo ah in yani aan ka wada hadlayno aan u nimada meeshan dhibaatadii ka dhacday walaalaheen ku dhacday fatahaada magaalada Beledweyne dhibaatadaas oo runtii duuniga dadba saameysay si aan dhibaatadaas uga qayb qaadano ka jaalid ahaan anagoo degan wadanka Turkiga guud ahaan waxaan arintaas u saarnay guddi ka kooban 9 xubnood marka guddigii muddo ka kooban 2 maalmood ilaa 3 maalmood waxay ku soo aruuriyeen lacag dhan $7,500 lacagtaas oo loogu talagalay in loogu gurmado walaalaheen reer Beledweyne si degdeg ahna loo gaarsiiyo runtii waxa qayb wax ka qaatay arintaas shaqadeeda ardayda Soomaaliyeed ee degan wadanka Turkiga ganacsatada oo runtii ahayd laf dhabar shacabka guud ahaaneed hooyooyinka meel walba ay joogaan gobolada ay kala joogaan waxa kale oo ka qayb qaatay hay'adaha degan wadanka Turkiga hay'adaha Soomaalida organisationada marka runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa meel walba ay joogaan marka qaybtan waa qaybta koowaad waa fiiska koowaad oo gurmadka loo sameeyo waxa jiri doonta qayb labaad hadii Ilaahay ra insha Allah oo ka sugayno midalan Ankara oo kale saas kala guddi ayaa loo saaray gobolka Konya Isbaarta Burdur Kotahayo Balaksayr marka intaas oo gobol oo jaalid ku dhaqan tahay ayagana waxaan ka sugaynaa insha Allah inay ka soo qayb qaataan fiiska labaad marka hadda si degdeg ah waxaan u diraynaa hadii Ilaahay laho lacagtaas hadii Ilaahay ra Brito waxaan ku hagaajinaynaa guddiga maartay gurmadka magaalada Beledweyne ayaan ku hagaajinaynaa marka waxaan kaloo halkaan runtii fursad kaga faa'iideysanayaa anigoo ku hadlayo magaca guud ee jaalida Soomaaliyeed ee degan wadanka Turkiga inaan u tacsiino dadkii walaalaheen ah meeshaas ku dhintay Ilaahay naxariistiisa siiyo intii ku hantay beeshay in Ilaahay badal khayr qaba uu siiyo intii ku guriyo beeshay in insha Allah taala Ilaahay ayagana uu badal siiyo marka intii awoodeen ahayd intaas ay noqotay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa wixii dhaawacan inay Ilaahay maarta dhibkooda u dhayo marka insha Allah markasta galabkiin ayaan nahay walaalaheen meel baa joogtaan runtii waa dad isjecel baa degan wadanka Turkiga jaalid isjecel dhinac walba ay yihiin waa dad isku xiran oo wax wada qabsada meel walba ay joogaan marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa jaalida degan wadanka Turkiga sida wanaagsan ay ugu jawaabeen baaqi aan u jeedinay oo si degdeg waliba ay 3 maalmood ugu jawaabeen marka qaybta labaadna waan bilaabi doonaa insha Allah marka wajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh